maamulka gobolka shabeellada hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa waxa uu mas'uuliyiin cusub u magacaabay deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellada hoose iyadoona xilalkii laga qaaday mas'uuliyiintii hore ee deegaankaasi horay u maamulayay. Wariyahayga Cabdiweli Cali online ayaa magaalada Afgooye warka inoogu soo diray. maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa xilka qaadis ku sameeyay xubnaha mas'uuliyiinta deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellaha hoose waxaana sidaas la mid ah wareegto uu soo saaray gudoomiyaha gobolka uu ku magacaabay gudoomiye cusub iyo kuxigenadisa oo uu yeesho deegaanka ceelasha biyaha. wareegtadan iskugu jirtay xilka qaadista iyo magacaabista ayaa warbaahinta waxa uu akhriyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose Cabdifataax Xaaji Cabdulle waxaana goobta wareegtada lagu akhrinayay goobjoog ahaa dhammaan xubnaha maamulka gobolka kan degmada Afgooye iyo saraakiisha ciidanka booliiska maamulka deegaanka la foole dhammaan laamaha amniga deegaanka la foole og gudoomiyaha degmada Afgooye og gudoomiye ku-xigeenada gobolka shabeellaha hoose og wasaaradda arrimaha gudaha dawladaha hoose iyo dib u heshiisiinta koonfur galbeed og madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ujeedo magacaabid maamulka deegaanka la foole. gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose markuu arkay baahida loo qabo in maamul cusub loo magacaabo deegaanka la foole gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose markuu la tashaday wasaaradda arrimaha gudaha odayaasha dhaqanka bulshada qaybaheeda kala duwan ee deegaanka la foole gudoomiyaha gobolka markuu arkay taariikh nololeedka way aragnimada kartida iyo aqoonta ay leeyihiin maamulka cusub gudoomiyaha gobolka wuxuu garowsaday waxa uu go'aansaday laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 1 Juun 2019 in uu magacaabo maamulka deegaanka la foole ee degmada Afgooye mudanayaasha soo socda. 1 Bile Cabdiraxmaan Axmed gudoomiye Ali Abdullaahi Guuleed gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa la dardaarmay xubnaha maamulka cusub ee maanta la magacaabay waxa uu uga digay dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka iyo deegaanada gobolkan inay is hor istaag ku sameeyaan mashaariicda horumarineed ee laga hirgelinayo deegaanadan. saaxiibadeena maamulka cusub ee deegaanka la foole waan u rajaynaynaa guul waxaan leenahay hortiina waxa meesha ka soo shaqeyn jiray maamulkaas oo duruufo adag soo maray muddo hadda waqti fiican laga joogan halka ka soo shaqeeyay deegaankaas waxbay ka soo qabteen intii ay joogeen intii Ilaahay ka waafajiyay waxaan idinka leedin geynaan waxay tahay in la fiiriyo bal idinkana waxaad ku kabi kartaan dawlad wanaaga waxaan kala rabaa inaan uga digo maamulada deegaanada ka jira iyo kuwa degmooyinka jooga wadankan waa burburay meel walba oo shaqo dib u dhis wadanka laga fulinaa la yiraahdo maamulada laga shaqeyn lahayd isbaarad dadban oo qalina u taal aniga waxaan ma ogi jid lama dhisi karo qof gurigiisa ka dumay jiingad ma saaran karo oo maamulkii dul taagan. Cabdiweli Cali online TV caalamiga ah ee Universal gobolka shabeellaha hoose.